بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كسو دوادا مقال كله أو كسابسن امتحانات كي هراء جارهان مادة حسابته وليه فصل كسديداتك مقال كان كي كوري waxaan kusoo jawaabnay su'aalo gaaraya ilaa 9 su'aal meesha ayaan ka sii wadayna marka kan wuxuu yahay muuqaalkii labaad ayuu wuxuu u yahay kii hore marka sida aan soo sheegnay wuxuu ku saabsan yahay muuqaalka imtixaankii sideedaadka oo ay galeen 2019 iyo 2020 ciwaankiisana wuxuu ahaa sida muuqaalkii hore aan kusoo sheegnay goobo geli jawaabta saxda ah goobo geli jawaabta saxda ah su'aasha marka tobnaad maadaama muuqaalkii hore 9 su'aal aan kusoo jawaabnay kan waa su'aashii tobnaad marka waxay dhahaysaa jibaarka 12 waa jibaarka 12 waa maxaa laga wadaa 12 marka laba goor la isku dhufto jawaabta soo bixaysa waxaa laga wadaa yani jibaarka 12 jibaarka waxaa laga wadaa ama laba jibaarka waa in tirada la isku dhufto laba jeer in la isku dhufto marka ba wuxuu dhahay waa 145 ta wuxuu dhahay waa 144 ja wuxuu dhahay 150 xana waxay dhahay waa 160 marka jawaabta saxda ah oo laba jeer marka 12 la isku dhufto soo baxayso waa doorashada ta oo 144 ah 144 waa laba jibaarka 12 waa 12 marka laba goor la isku dhufto jawaabta soo baxayso waa 144 su'aasha tobnaadna sidaas ay ahayd imtixaankii hore su'aasha 11aad jibaarka 16 waa يعني 16 oo laba goor la isku dhuftay numberka soo baxay wuxuu noqonaa ba wuxuu noqonayaa dhahay 250 ta waxay noqonaysaa 256 ja-na waxay noqonaysaa 260 xa-na waxay noqonaysaa 290 marka jawaabta saxda ah waa ta oo 16 marka laba jeer la isku dhufto jawaabta soo baxayso waa 256 marka doorashada ta asaxan sidoo kale su'aasha 12aad marka tirada 6 lagu dhuftay 6 lagu sii dhuftay 6 lagu sii dhuftay 6 loo tibaaxo jibaar ahaan yani 6 marka 5 goor isku dhufsanto marka loo tibaaxayo ama loo sheegayo jibaar ahaan jawaabta waa hadda waxay u qoran tahay waa tiro ahaan tiradaasna waa hal xabo ama waa hal tiro oo 6 ah waxaana ka dhaxay 6daas soo noqotay tarana ka dhaxayso xisaabfalka taran ama ku dhufashada ka dhaxayso jawaabta waxay noqonaysaa u dhahay ba 6 oo la isku dhuftay ama 6 lagu muujiyay 5 ta waxay noqonaysaa u dhahay 6 lagu muujiyay 4 ja waxay noqonaysaa u dhahay 6 lagu muujiyay 3 xana waxay noqonaysaa u dhahay 6 lagu muujiyay 2 ka saxay marka 6 waxay isku dhufsan tahay 5 goor isku dhufsan tahay waa midka marka muujiyaha muujinayo 5 goor marka waa ba jawaabta saxda ah waa ba maxaa yeelay muujiyaha ba waa 5 muujiyana wuxuu sheegaan dhahnay salka inta goor uu isku dhufsamay haddii aan sii wadno marka su'aasha 13aad waxay dhahaysaa marka la jibaarayo ama la jibaarayo 4 lagu dhuftay 4 lagu sii dhuftay 5 lagu sii dhuftay 5 lagu sii dhuftay 5 jawaabta waa يعني 4 oo isku dhufsan 2 jeer iyo 5 oo isku dhufsan 3 jeer jawaabtu waxay noqonaysaa u dhahay ba 4 lagu muujiyay 3 lagu dhuftay 5 lagu muujiyay 2 marka midka hadaa fiiriso dooqa ugu horeysa hadaan falanqeyno 4ta waxa ku muujisan oo muujiye looga dhigay 3 micnaheedu waxay tahay marka 4 in isku dhufsantaa 3 jeer su'aasha lagu weydiina ma 4ta isku ma dhufsan 3 jeer marka dooqa ba wuu qaldan yahay maadaama 4ta muujiye oo ugu dhigay 3 muujiyahaasna waa cadeynaya 4ta inay isku dhufsantaa 3 jeer su'aashan aysan ahayn mid 3 jeer isku dhufsan oo ay tahay mid 2 jeer isku dhufsan marka doorashada ba waa qalad hadaa imaatay ta iyadana fiiri waxa la dhahay 4 waxa muujiye ugu dhigay wuxuu muujiye oo ugu dhigay 4 jeer ama 4 ku muujiye oo ka dhigan 4ta salka ah 4ta salka ah inay isku dhufsan tahay 4 goorna isku dhufsan tahay marka 4tii lagu siiyayna ama su'aashii lagu siiyay 4taada isku ma dhufsaneen 4 jeer
ee waxay isku dhufsaneed laba jeer marka doorashada ta iyadana waa qalad sidoo kale hadaa sii socotid doorashada ja hadaa imaatid afarta oo waxay isku dhufsan tahay laba goor maadaama muujiye looga dhigay labo waxay ka dhigan tahay afarta muujisalka ah ama afarta su'aasha lagu soo sheegay inay isku dhufsaneed laba goor okay afarta waa sax shanta ka fiiri marka kuwii hore shan waxa uu fiiri waayeen waxay tahay marba hadiiba afartu qaldan yahay shanta in la soo fiiriyo waqti lagu lumiyo ma taala meesha marka shanta kan fiiri marka asagan maadaama afartu uu saxan yahay shantiisa fiiri sidoo kale shanta wuxuu muujiyo oo dhigay saddex oo ka dhigan in shantii kor lagu soo siiyay ay isku dhufsaneed saddex goor isku dhufsaneed marka jawaabta saxda ah waa ja ina sii fiirisid xa ma u baahnidba marba hadaa jawaabta ah heshay ina sii fiirisid uma baahnid oo afarta waxay isku dhufsan tahay la ja laba goor shantan waxay isku dhufsan tahay la saddex goor waana sida saxda ahayd su'aasha 14aad hadaa sii fiirino si la isku dhufto jibaaro salkooda uu isku mid yahay waa in jibaaro salkooda isku mid yahay waxa la rabaa in la isku dhufto ya maxaa la sameeynaa marka waxa la sameeynaa uu dhahay ba jibaarada waa la isku daraa ama si kale hadii uu dhaho muujiyaasha waa la isku daraa taa wuxuu dhahay muujiyaasha ama jibaarada waa la isku dhuftaa sidoo kale ja wuxuu dhahay muujiyaasha ama jibaarada waa la isku qaybiyaa kan u dambeeyo ama xulashada u dambeeysa ayadan waxay dhahday jibaarada ama muujiyaasha waa la kala jaraa كيساهي مرك هدي لبا جبار لسكو دفنايو جبارنا waa inaad fahansan tahay jibaar wuxuu ka kooban yahay sal iyo muujiye marka hadii laba jibaar la isku dhufanaayo muujiyaas maxaa lagu sameyn jiray ma la kala jari jiray ma soo soo qaybin jiray ama waa la isku dhufan jiray ama waa la isku dari jiray marka jawaabta saxda ah waa la isku dari jiray waa ama waa la isku daraawa oo dooqaasna ama doorashadaas maxaa iska leh waxa iska leh ba iska leh oo waa la isku daraawa jibaarada ama muujiyaasha waa la isku daraa jawaabtaasna ayay sax ku tahay ma la kala jaraayo oo waxa la kala jaraa laba jibaar markay qayb ka dhaxayso markaas labada muujiye la kala jaraa isku dhufashay iyo isku qaybin ma bataalo taas way ka sii daran tahay haddii aan sii wadno marka su'aasha 15aad si loo fududeeyo jibaar ahaan laba lagu muujiyay laba lagu soo dhuftay laba lagu muujiyay saddex iyada oo la adeegsanayo habka isku dhufashada waa maxaa la sameeynaa laba jibaar isku dhufsan waa in la fududeeyaa jibaarna waxa waaye laba lagu muujiyay laba midna waxa waaye laba lagu muujiyay saddex waa la fududeynaa labadaas jibaarna waxa ka dhaxeeyo tarana ka dhaxayso ama waxa ka dhaxayso isku dhufasho waxa la sameeynaa marka labada jibaar maadaama labada sal isku mid yihiin jibaarka koowaad salkiisa waa laba jibaarka kalena salkiisa waa laba maadaama salkoodu isku mid uu yahay waxa la sameyn jiray labada sal mid laga soo qaadan jiray labada muujiyana waa la isku dari jiray sida doorashadii su'aashii aan ku soo aragnay 14aad labada muujiyana waa la isku dari jiray samee marka ba waxa soo baxayso u dhahay laba lagu muujiyay 5 labadii sal mid ka soo qaatay labada sal waxay ahaayeen laba laba hal sal oo ka soo qaatay muujiyaasha kan muujiyaha koowaad muxuu ahaa laba muujiyaha kalena muxuu ahaa saddex labadii muujiye uu isku darsaday meeshaas waxa soo baxay soo dhahay laba lagu muujiyay 5 marka waxa malaysa jawaabta sax inay tahay ba inay tahay maxaa yeelay labada muujiye uu isku darsaday waana 5 waxa soo baxay soo dhahay sidoo kale ta laba lagu muujiyay 3 salka uu ka fiican yahay hal sal ka soo qaatay laakiin muujiyaasha marka la isku daro oo laba iyo 3 la isku daro ma soo baxayso 3 saas darteed doorashada ta waa qalad doorashada ja wuxuu dhahay laba lagu muujiyay 4 salka uu ka fiican yahay oo labada sal hal sal ka soo qaato oo laba ah laakiin 3 marka laba lagu daro ma soo baxayso 4 maadaama labada jibaar ay isku dhufsan yihiin labada muujiyin in la isku daro aheed isku darkoodana 4 ma noqonayso saas darteed waa qalad wili waxa saxan jawaabtii ba aheed ayaa saxan kuwan kale way qaldan yihiin dabcan in waqti lagu sii badano muhiim maaha doorashada u dambeeyna hadaa fiirin wuxuu dhahay laba lagu muujiyay 6 salka uu ka fiican yahay laakiin labada muujiye oo ahayd in la isku daro wuu isku dhuftay wuu ku qaldan yahay marka meeshaas in la isku daro ahayd doorashada saxda marka waa doorashada ba ayaa saxan su'aasha 16aad haddii aan fiirino jibaarada jibaaran waxaa laga wadaa jibaarada jibaaran ayada oo jibaar la haysto haddii midka lagu sii jibaaro waxaa laga wadaa ba waxaa laga wadaa jibaaro isdul saaran jibaar ayada uu jiray oo mid kale la sii dul saaray taa waxaa laga wadaa u dhahay jibaaro is hoos yaalo
jibaara meel ku qornaa ama lagu qoray midka lagu soo hoos qoray wuxuu kale u dhahay ja waxa laga wadaa warkaas jibaarka jibaaran waxa laga wadaa u dhahay jibaaro isdhinac yaalo jibaara dhinac ku qornaa midka lagu dhinac qoray xa wuxuu dhahay waxa laga wadaa jibaaro siman marka doorashada saxda ah waa jibaaro isdul saaran haddii aad maqashid jibaaro jibaaran ama jibaarka jibaaran ama jibaarada jibaaran haddii aad maqid waxaa laga wadaa jibaaro isdul saaran asagoo jibaar uu jiri oo mid kale la dul saare marka jawaabta saxda ah waa ba ayaa saxan waana jibaaro isdul saaran su'aasha ku xigto 17 marka laga saaro xididka 169 jawaabtu waa 169 marka laga saaro xididka marka laga saaro waxa laga wadaa waxa sheegtaa number oo laba jeer marka la isku dhufto keeni kara 169 marka kaas xididku uu bixi kara marka numberkaas ba waxa la waa 12 yani waa 12 waxa la waa numberka laba goor marka la isku dhufto ku siin kara 169 sidoo kale 13 waa lahay waa numberka marka laba jeer la isku dhufto ama la jibaaro ku siin kara 169 sidoo kale xididka 169 wuxuu ugu baxaa lahay 14 sidoo kale su'aasha ama xulashada u dambayso waxa la xididka laba jibaaran 169 waxay xidid kaga baxdaa 15 kaga baxdaa ka saxay marka waxa saxan dooqa 13 saxan oo ta ah maxaa yeelay 13 marka laba jeer isku dhufatid waxay ku siinaysaa 169 marka 169 waxay xidid kaga baxdaa 13 kaga baxdaa waana doorashada ama xulashada ta haddii markaas si wadno aan fiirno su'aasha 18aad ee imtixaankaas uu ku saabsanaa jawaabta saxda ah ee jibaarka lagu muujiyo 3 lagu sii muujiyo ama lagu sii jibaari 2 waa marka meeshan waa jibaarka jibaaran waay dooqiya ama su'aalihi hadda soo arkeen ka midiin 2 lagu muujiyo 3 waa jibaar 2 lagu muujiyo 3 waa jibaar waxa lagu sii jibaaray ama lagu sii muujiyo jibaar kale oo laba ah marka maxaa la sameeynaa jibaarka jibaaran see loo shaqeeyaa waxa loo shaqeeyaa labada muujiyaha la isku dhuftaa muujiyaha koowaad ee jibaarka gudaha waa 3 muujiyaha kalena waa 2 labadaas muujiyaha la isku dhuftaa ma la isku daro iska ilaali meeshan jibaarka jibaaran muujiyaashiisa la isku daro mana la kala jaro ee waa la isku dhuftaa jibaarka jibaaran muujiyaashiisa waa la isku dhuftaa meesha sameeya iska ilaali kalarka midabka waa ka soo bedelay muujiyaha koowaad waa 3 kan kalena waa 2 marka waa la isku dhuftaa jibaarka jibaaran muujiyaashiisa waa la isku dhuftaa jawaabtu waxay noqonaysaa marka ba wuxuu dhahay 2 lagu muujiyo 6 يعني سالكي لبا واي uu soo qaatay 3 iyo wuxuu isku soo dhuftay 2 3 iyo wuxuu isku soo dhuftay 2 waxa soo u soo baxay marka 6 marka waxa u malaysaa jawaabta ugu horeyso ama 2 lagu muujiyo 6 oo doorashada ba ah in ay tahay mid saxneed haddii aan sii fiirno kuwa kale wuxuu dhahay 2 lagu muujiyo 4 waa qalad maxaa yeelay 3 marka 2 lagu dhufto 4 ma soo baxayso salka uu ku saxan yahay 2 uu soo qaatay laakiin muujiyaha ka qaldan sidoo kale jaa wuxuu dhahay 2 lagu muujiyo 7 asana waa sax ma aha waa qalad xa wuxuu dhahay 2 lagu muujiyo 5 meeshan xa wuxuu soo isticmaalay xirfad yar wuxuu soo sameeyay wuxuu rabaa inuu ku qaldo maxaa yeelay labada muujiyo isku soo darsaday 5 soo qaatay labada muujiyo isku soo darsaday waa 5 manna aha muxuu ahaa marka la isku daraayaba maxaa yeelay jibaarka jibaaran muujiyaashiisa ma la isku daro ee waa la isku dhuftaa marka 3 hadii 2 lagu dhufto waa 6 waana doorashada koowaad doorashada u dambaysa ee xa uu isku soo daray isku darna ma aha marka jawaabta saxda ah waa ba su'aasha kale hadii aan fiirino ee 19aad wuxuu yiri marka tirada 27 xididka 3 jibaaran marka laga saaro ama marka tirada xididka 3 jibaaran ee 27 marka xididka 3 jibaaran laga saaro jawaabtu waa sifad hadii uu dhaw waxay noqonaysaa 27 xididka 3 jibaaran ka saar numberka soo baxay sheeg oo yani maxaa laga wadaa number 3 goor marka la isku dhufto ku siin karo 27 keen number 3 goor marka la isku dhufto ku siin karo 27 ba wuxuu dhahay waa 9 ta wuxuu dhahay 10 ja wuxuu dhahay 3
xaana wuxuu dhigay shan haddaa saddex jeer isku dhufatid 27 ma ku siinaysa 27 shan haddaa saddex jeer isku dhufatid waxay ku siinaysaa 125 saas darteed shan ma aha 10 haddaa isku dhufatid saddex goor 27 ma ku siinaysa 27 10 haddaa isku dhufatid saddex goor waxay ku siinaysaa 1000 kunna laguma siinaayo waxaa lagu sii 27 sidoo kale sagaal haddaa isku dhufatid saddex goor ma ku siinay 27 ma ku siinaysa yaa ku siin kara marka saddex ku siin karta saddex marka haddii aad saddex jeer isku dhufatid waa 27 saas darteed xididka saddex jibaaran 27 waxay uga baxdaa saddex uga baxdaa waana jawaabta ja ha ma saxan waxaa saxan ja ayaa saxan ugu dambeyn halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawad haddii aad tahay markii ugu horeysay ee aad na soo booqatay nagu soo biir fadlan subscribe garee si ay muuqaalada halkan ku jira dhammaantood ay kuu soo gaaraan subscribe saar hore hadduu kuu saarnaayna subscribe-ka gambeelka furo si dhammaan muuqaaladeena aan soo dhigno aad u aragtid laagna garee ama laag saar si asxaabta kale uu muuqaalka u gaaro ramadaan kariim soon qaad wanaagsan waxaan rabaa halkan inaa ooga sheego dhammaan ardayda jecel inay waxbarashadooda horumariyaan wixii su'aalaad ah ama mas'alooyin ah oo ay qabaan inay kusoo hagaajin karaan WhatsApp numberka shaashada ka muuqdo waxaa jira arday la haayo Isaaq Nuur Ibrahim oo sidaas oo kale su'aal soo weydiiyay marka la ku celinaa haddii uu maqlaayo wixii su'aal ah ama mas'ala ah qabtid WhatsApp numberkaas lagu soo hagaajiyo anigana waxaa isku dayaa inaan sida ugu wanaagsan aan idinku soo jawaabo insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you Allah, thank you for this day. Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak. It is Friday, this is the best day. Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Mubarak.